أعمالنا وبها سمت أسماؤنا نمضي وتبقى. madasha wada tashiga heerka qaran ee looga tashanayo mustaqbalka dalkeena iyo halka uu u socdo sanadka 2016 ka hor iyo kadib oo uu si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynayaasha maamulada koonfur galbeed Galmudug Puntland Juba iyadoo dhanka beesha caalamkana ay ka qayb galeen danjirayaasha qaramada midoobay IGAD jaamacadda carabta iyo safaaradaha ka furan Muqdisho. shirkan ayaa looga arinsanayaa inta uu socdo hirgelinta doorashada ka dhacaysa dalka nuuceeda iyo qodobo kale oo muhiim ah iyadoo furitaanka maantana uu ka hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sharaxay sida ay muhiim u tahay in Soomaaliya oo wada jirta ay qorshe cad la timaado si caalamka ugu caawiyo wixii aan isla wada galno isku wada raacsanahay ayaan xambaari doonaa waxa aan ku kala duwanaanahay waa xalinaynaa haddii aan xalin weynana waa dib baan u dhiganaynaa waqtigeedaan la suganaynaa laakiin maanta intaasaan wada qaadayna waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaa afkaarta meeshan looga dhawaaqa qaarkood oo mas'uuliyadda processkan Soomaalida iskale annagaa ka mas'uul ah haddii ceeb iyo cillad ku timaadana annagaa ka mas'uul ah guura hadday ku yimaadina annagaa ka mas'uul ah saaxiibadeena caalamkuna doorka garab istaagga iyo kaalmada ah ee ay leeyihiin hadda ilaa haddana way soo qaateen ayaguna intaan ka sugaynahay waa intaas laakiin mas'uuliyaddeena annagaa qaadanayno waana ka soo baxayna haddii aan la yiraahdo waa mahadsantihiin aad iyo aad boqolkiiba boqol officially barnaamijkii wada tashiga qaran waa furan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay sida dadka ku nool deegaanada Soomaaliland ay wada tashiyada noocan ah uga qayb gali karaan annaga processkan aan bilownay process Soomaalida oo dhan ay ku jirto waaye dabcan Somaliland walaalaheen wixii maxaan ku yiraahdaa hadba sidii aan fursad u helnaay مبدئيا بروسيس كان واكمل هاد بس ظروفه انه اوغلادان ان اوغا مid noqdaan waa kula shaqeyn doona arintii wada hadalkeeda hor u socotay meel fiican ay maraysaa hadda ayaana qaabaal cusub iyo waji cusub ayadana u sii gudbaysaa rajadeena dhinacaasi aad iyo aad ay u fiican tahay midaan hadda socotana mar walba waxaan dhahnay wixii Soomaaliya iyo Soomaalida u danaynayo oonay suubi karaan Soomaalidu ee suurtagal ah ayaa muhiimadda la saari doonaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa iyana dhankooda ka hadlay shirka maanta iyo sida ay la tahay hiigsiga sanadka 2016 waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo haddaan ku daanahay furitaanka madasha wada tashiga Soomaaliyeed soo qaybgalka beesha caalamka la joogtana waa soo dhaweynaya waa ku mahadsanyihiin maantooda Puntland waxay diyaar u tahay inay kala shaqeyso Soomaaliya saaxiibadana Soomaalida iyo beesha caalamka 2016 processkaas uu ku dhamaado ayna u dhalato dowladnimo Soomaaliyeed oo wanaagsan aan aad u aaminsanahay in haddii aan isku nimaano wada hadalno in farqi kastoo noo dhexeeya ka heshiin karno aan aad iyo aad u aaminsanahay waxaan kaloo aaminsanahay haddii jiraan wax farqi ah oo mas-uul noo dhexeeya dhexyaala ama si gaar ah dhexyaala inaan ka wada hadli karno kana wada heshiin karno haddaan kaftamo waxaa suurtagal ahayba waxaa laga shakisnaaba ama xoogaa kala shakiga keenaya inay ahayd inay suurtagal tahay hay-adaha qaar iyo dadka qaar inay 2016 kala dhuumanayeen ama cabsi laga qabay laakiin madashani shakigeedu meesha ka saaraysaa oo caafimaad iyo daaweyn ay keeni doontaan aaminsanahay halka dhabta ah 2016 ku socon hadda waxaa loo jeedaa waxaa la kala guud waxaa la interim baa laga soo guuray dowlad baa la yimid waxaa la 2016 wax kale loo guuray maxaa kaga guuri karaa innaga oo uur xaaran waxba isu qabin waxaa ku wada hadlayna saraaxa uga wada hadalla admaacda siyaasadeed lana kulli intaan banaanka soo dhigan nin walba Soomaali maxaa dan oo miiska loo soo fadhiisto wax kasta ma dhacdo boqolkiiba boqol inaan uur ka wada isku wada qanacsanahay suurtagal ma noqon waa la wada joogaa in la wada tashado oo gogoshaas la dhigo oo meesha loo socdo la isu tilmaamo oo laga wada hadlo sida saxaabkeedu sheegay in si saraaxa looga wada hadlo intii waxaa aad u fiican waaye diyaaran anaga maamulkeeda koonfur galbeed in waxaan si saraaxa looga hadlo sidii arrintaas ay ku suuro geli lahayd oo ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatadooda ku jirto dowladnimo ku gaari lahayd
dimuqraadiyad oo isbedel iyo waxuna si bilaabmi lahayn in ay gaaraan